bani'aadamku waxa uu markasta u baahan yahay inuu wax ka barto si uu horumar uga gaaro arrimo badan oo quseeya noloshiisa. Marka ay tahay xiriirka ka dhexeeya lamaanaha ayaa waxa uu u baahan yahay in markasta hore loo mariyo. Mar haddii ay fududeen in aad u sheegtid ninkaaga sida aad doonayso in uu kuugu raaxeeyo, ayna adag tahay in la iskala hadlo sidii aqoon ku saabsan galmada loo wada baran lahaa, ayaa waxaan idiin soo gudbin doonaa arrin yar oo aad u muhiimsan. Marka hore isku day in aad u sheegto shumiska iyo saraaxa marka ugu horeysa in natiijo fiican laga gaadho. qolka sariirta ayaa waxaa muhiim ah in lasla soo galo ayada oo aad loo soo kulolaaday. dhunkashada iyo salaaxa ma aha in ay noqoto mid marka sariirta korkeeda oo keliya la isku arko la sameeyo, laakiin waa in ay ahaato mid tusaale ah la sameeyo subaxdii marka la kala tagayo oo shaqo iyo arrimo kale la aadayo, taas oo xaaskaaga ku bilaabaysa in ay ayada oo dareen kuu qabta shaqadaada aado. faa'iidada ku jirta dareenka aad ku tustay shumiska iyo salaaxida ayaa waxa ay kuu arkaysaa in aad tahay mid markasta xaaskiisa raba oo jecel. halkaasna waxa aad ka arkaysaa natiijada kasoo bixi doonta. dareenka dumarka jirka haweenka waxa uu leeyahay meelo aad u dareen badan, laakiin nasiib darro lama ay soo dhalan haweenku buug ay ku qoran yihiin meelahaasi. marka waxaa haboon in aad baaritaan ku samaysid si aad u hesho meelaha xaaskaagu ka leedahay dareenka badan. si ay u muujiso dareen ayaad ka fahmaysaa in ay ku raaxaysanayso. markaas ayaa waxa aad ogaanaysaa in aad wado fiican cagta saartay. qalabka aad adeegsanaysana si aad u hesho meelaha aad raadinayso ee dareenka badanina waa dibinahaaga, carabkaaga, farahaaga iyo badbedel noocyada galmada. galmo kala duwan oo noocyo badan leh waxa ay keentaa raaxo badan, laakiin galmo hal nooc oo keli ahi waxa ay keentaa xiisajo. mararka qaar waxaa fiican in saacado la wada raaxaysto, halka mararka qaarna mid gaaban oo degdeg ahi xiiso badan leedahay. waqtiga aad joojinayso galmada waa in aad joojisaa marka ay dhammaato. ragga qaar ayaa waxa ay u maleeyaan si wadida galmadu marka ay dhammaatay in ay tahay mid fiican. dhab ahaantii waxa ay rabtaa xaasku in aad si wadid galmada in ay ka biyo baxayso kadibna jooji. natiijada aad ka helaysa na waa adiga oo ogaanaya in mararka qaar uu qofku hore u bixi karo, mararka qaarna uu waqti qaato. raaxada galmada kadib. mahadsanid macaan. si kasta oo aad u daasheen ayaa waxaa muhiim ah galmada kadib in aad ahaataan kuwa isu raaxaysanaya. cilmi baaris ay sameeyeen khuburada ayaa waxaa lagu ogaaday in ragga qaar hurdo qabato galmada kadib. haddaba libaax, si aanaad u seexan markasta oo aad xaajiyada sariirta isla aadaan waa in aad kula raaxaysataa xaaska xilliyo kala duwan. natiijada raaxada bacda galma ayaa ah jacaylkiina oo aad u sii xididaysanaya iyo waqti macaan oo aad isla qaadanaysaan.